kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihi ka qoran iyo horyaalka Premier League Ingiriiska oo kulamo xiiso leh laga ciyaarayo sidoo kale waxyaabaha aan idiin soo gudbinayno waxaa ku jira iyana Copa del Rey oo Barcelona iyo Atletico Madrid ay fooda isdari doonaan iyo weliba kulanka kale ee xiisaha leh isna dhex maraya kooxaha kala ah Inter Milan iyo Lazio ee ka tirsan koobka Italia. haddii aynu dabcan ku horeyno dhinaca wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga waxyaabihi ay ka qoreen kooxda Manchester City la yiraahdo ayaa raadinaysa inay la wareegto ciyaaryahanka Florian Wirtz ee kooxda Bayer Leverkusen isagoo khadka dhexe uga ciyaara waa 22 sano jir wadanka Jarmalka kasoo jeeda waxaa sidoo kale heshiiskiisa ay qayb kaga dhigi doontaa ciyaaryahanka lagu magacaabo James McCarthy ee kooxdan dhalinyaradeeda ka tirsan waa Manchester City. Alexander Isak oo ka tagaya kooxda Newcastle United haddii ay ku fashilanto in ay usoo gudubto tartanka Champions League waxaana wargeyska Mirror uu warinayaa in xidigani ay suuragal tahay inuu ku biiro kooxo kale oo waaweyn oo dabcan uu u door bedesho. Newcastle waxay indhaha ku hayn doontaa Ademola Lookman oo isaga tagaya kooxda lagu magacaabo Atalanta kadib dagaal dhex maray isaga iyo tababare Gasperini oo kooxdaas hogaamiya. dagaal dhinaca warbaahinta ah ayaanay dabcan isu adeegsanayeen maalmihii u dambeeyey xidigaasina kooxdaas waa uu ka dhaqaaqi karaa. Manchester United ayaa sidoo kale kula tartamaysa. kooxda Real Madrid waxay sheegtay inaanay wax xiriir ah la sameynin ciyaaryahanka Virgil van Dijk ee dabcan isagu u ciyaara kooxda Liverpool oo 33 jir wadanka Holland kasoo jeeda ah kaasoo heshiiskiisu dhacayo marka waqtigan dabcan suuqa soo socda la gaaro. kooxda Tottenham waxaa ciyaaryahankeeda Rodrigo Bentancur ay ugu yaboohaysaa inay heshiiska u kordhin doonto haddii uu kooxda la sii jirayo waxaana xidigan wadanka Uruguay kasoo jeeda uu ka mid yahay xidigaha kooxdani ay doonayso inay sii haysato. Galatasaray waxa ay dacwo ka furaysaa tababare Jose Mourinho oo ciyaartooydeeda kaydka dabcan ku tilmaamay in ay yihiin daanyeero waxaana hadalkaas uu kala jeeday inay usoo boodeen sidii daanyeeradii marar buu yiri ay garsooraha ku qaylinayeen ciyaar ku dhamaatay eber oo Fenerbahce iyo kooxda Galatasaray iyadoo dhex martay waxaana ay leeyihiin hadda cunsuriyad ayaa ninkani uu dabcan ku dhaqaaqay. dhinaca kalena kooxda lagu magacaabo Manchester United waxa ay dhimaysaa 200 oo kale oo shaqaalaha kooxda ka tirsan shaqooyinkooda ka gadaal markii kooxdan dhaqaale baaba xoogani uu soo wajahay waqtiyadii ugu dambeeyay. United ayaa horay waxa ay u sheegtay in khasaarihii dhaqaale ee kooxda gaaray sanadihii lasoo dhaafay uu gaarayo 300 milyan tan iyo 2019 isla markaana kooxdu aanay suuragal ahayn inay sidaas iyadu kusii wado howlaheeda. Sir Jim Ratcliffe oo madaxda kooxda ee dhawaangalka ah ku jira waxa uu sheegay in aanay sii jiri karin in Manchester United ay shaqaale sidaas u fara badan sii haysato. haddii dhinaca kalena aynu eegno ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Premier League England ayaa la ciyaari doonaa waxaana kulamada maanta dhacaya ku jira kooxda lagu magacaabo Chelsea oo la ciyaari doonta kooxda Southampton. Brighton Hove Albion iyana waxa ay fooda isdari doonaan kooxda Bournemouth. Crystal Palace iyo Aston Villa waa ay wada ciyaari doonaan. Wolves ayaa la ciyaari doonta kooxda Fulham kuwaasina waa horyaalka Ingiriiska. Koobka del Rey ciyaar xiiso leh waxay ku dhex mari doontaa kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid. kulankaasi wuxuu ka dhacayaa gegida kooxda Barcelona ay ku ciyaarto waxaana dabcan uu ka mid yahay kulamada ugu adag ee Atletico Madrid ay wajahayso waqti ciyaareedkan. dhinaca kalena waxaa jira koobka Talyaaniga oo isna wareegiisa 8 kooxood ay isku farasaari doonaan kooxaha Inter iyo Lazio oo dabcan iyana kulan adag wada qaadan doona. waa musaxo show daawadayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. folowda iyo like-ta iyo share-ta noogu dhufta waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena sidoo kale qaybteena YouTube-ka subscribe inoo saara.